tuulada Raambuur waxaa soo galay abaar aad u daran hal mar ceeryaamo cufan ayaa qarsay meel kasta habeenkaas cimilada waxay ahaayeen qabow laba saaxiib oo la kala oran jiray Ajay iyo Fijay ayaa fadhiyay meel geed hoostiis ah iyagoo ka sheekaysanayeen jinniye iyo ruuxyo cabsi leh Ajay ayaa qoslay oo ku yiri Fijay war naga daa sheekooyinkaas jinni iyo sixiroolo toona ma jiraane sidoo kale wuxuu yiri dhammaan waa been dadka lagu cabsi geliyo Fijay ayaa wajigiisa isbedelay dabadeed si hoos ayuu yiri Ajay waxaad moodaa inaadan ogeyn xaqiiqada marmarka qaar waxyaabaha dadka ay ka baqaan waa run Ajay ayaa si jees loo yiri haddii ay run tahay ii sheeg sheeko dhab ah kuwii hore ee aad ii sheegtay dhammaantood been ayay u ekaayeen Fijay hareeraha ayuu eegay codkiisa hoos ayuu u dhigay wuxuu dhahay waxaa la sheegaa in habeen kasta ay meeshaan timaado haweeney sixirooley ah Ajay ayaa istaagay isagoo geesi aan cabsanayn iska dhigayay wuxuu dhahay haddaba caawa aan tagno oo aan aragno sixirooleydaas sidaas darteed labadoodii waxay u dhaqaaqeen dhanka qubuuraha iyadoo ceeryaamadii ay sii badatay balse meesha waxa ka jirtay qabow aad u daran markay gudaha qubuuraha ay galeen waxba ma aysan arkin Ajay ayaa qoslay wuxuu dhahay waaba been kale sheekadan beenta ah dadka tuulada ayaa iska faafiyay sheekooyin cabsi ah oo been ah isla markiiba waxay maqleen cod biyaano oo meel mugdi ah ka soo yeerayay oo dhahayay qan 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 codkii ayaa soo dhawaanayay cabsi darteed Ajay iyo Fijay waxay isku qariyeen duuriyal gadaashiis dhawaaqii musiga ayaa sii xoogaystay kadibna waxay hortooda ku arkeen haweeney dheer oo timo madow oo dhaadheer leh wajigeeduna dhiig iyo boor isku qasan ay ka muuqdeen indhaheedu waxay ahaayeen kuwo guduudan oo cabsi ah waxay ku qalinaysay cod murugo leh iyadoo dhahaysay raaju wiilkaygii boqorkaygii yaraa xagee la iga ka kaxeeyay waxay ku dul dhacday qabri iyadoo cidiyo dhaadheer dhulka ku qodaysay waxay ku ooynaysay yaa halkan kugu aasay maanta waan ku sii deynayaa ayay dhahaysay markii oohinteedu cirka ay isku shareertay qabuurihii oo dhan waxaa ka yeerayay dhawaaqyo argagax leh dabayl qabow ayaa soo dhacaysay geedihiina si waali ah ayay u ruxmaayeen Ajay ayaa isagoo argagaxsan yiri Fijay tani waa sixirooley dhab ah Fijay qudhiisu cabsi ayuu la argagaxsanaa aamus haddii ayna aragto waxaa laga yaabaa inay anagoo nool ayna aasto labadoodii waxay isku dayayeen inay shanqadh dhan aysan samaynin sixirooloydii ayaa qabriga ka soo saartay meyd wiil yar waxay si murugo leh madaxa uga salaaxaysay meydka kadibna si taxadar leh ayay dib qabriga ugu aastay markii ay meesha ka tagtay Ajay iyo Fijay waxay dareemeen murugo iyo cabsi isku jirta Ajay ayaa yiri waxay u muuqataa qof aad u dhiban qalbigayga ayaan ka dareemay Fijay ayaa madaxa ruuxay wuxuu dhahay bari aan tuulada tagno waa inaan ogaanaa waxa ku dhacay subaxdii xigtay waxay gaareen tuuladii sixirooleyda markii hore dadka tuulada si wanaagsan ayay ula dhaqmeen laakiin markii ay magaca haweeneyda maqleen wajiyadoodii ayaa isbedelay naxdin darteed dadkii qaar baa albaabada xirtay cabsi darteed qaarna cabsi darteed ayay hareeraha eegayeen Ajay ayaa yiri maxay dadka oo dhan uga baqayaan inay ka hadlaan Fijay ayaa si hoose u yiri wax qarsoon ayaa jira iyagoo jahwareersan ayay arkeen nin waayeel ah oo sakhraansan oo jidka dhinaciisa yaala Ajay ayaa u dhawaaday wuxuu dhahay adeer ma taqaan sixirooleydaas qabuuraha joogta ninkii odayga ahaa ayaa qosol cabsi la qoslay wuxuu labada wiil ku yiri inaad ka hadasho iyada waxay u baahan tahay inaad leedihiin wadno libaax Fijay ayaa Ajay ku yiri waan kuu sheegay inaysan arrintu caadi aysan ahayn Ajay ayaa yiri adeer noo sheeg anagu ma cabsanayno odaygii ayaa indhaha isku qabtay dabadeed si tartiib ayuu u yiri sixirooleydaas magaceedu waa Rooba waxay ahayd haweeney aad u wanaagsan waxay ninkeeda iyo wiilkeeda u jeclad si waali ah kadib odaygii wuxuu bilaabay sheekadii cabsida ahayd Rooba ayaa maalin ku tiri ninkeeda Suuriya caawa goor hore imow waxaan sameeyay waxaad aad u jeceshahay Suuriya ayaa qoslay wuxuu yiri haye dhaqso ayaan kugu imaanayaa laakiin habeenkii markuu imaaday wuxuu xirnaa dharkii arooska Rooba ayaa iyadoo qoslaysa ku tiri maxaa weli ma waxaad u malaynaysaa inaad aroos cusub tahay waxay sidoo kale ku tiri marwaayad ayaa jilaysaa laakiin Suuriya wajigiisu ma uusan u ekeen qof ku faraxsan hadalka ay sheegayso indhihiisu waxay ahaayeen kuwa madow oo argagax leh kadibna si tartiib ayuu ugu yiri Rooba caawa gurigan wax aad u xun ayaa ka dhacaya sidaas darteed wuxuu uga sheekeeyay sheeko kale xaaskiisa oo la yaab leh waatanse sheekada uga sheekeynayay roob xoogan ayaa ka da'ay habeen meel madow oo cabsi ah dabaylo aad u xoogan ayaa ruxay fiilooyinka korontada cirka waxa ka yeeray gugac iyo hillaac isku dhex jira dhamaadka wada cidla waxa ku yaalay dukaan rooti lagu iibin jiray oo burbursan albaabadiisuna qadiimi ayay ahaayeen boodhka korkiisa saarnaa si qaloocan ayuu u saarnaa waxaana ku qornaa ramdayaal bread banaandar anshuul iyo shifaani ayaa jidkaas marayay markaas si lama filaan ah gaarigoodii ayaa ka damay darawalkii gaariga isagoo isku dayay inuu gaariga hagaajiyo
dejiyo ay si hoos u yiri dadka xaafadda waxay meeshan ugu yeeraan meeshii ruuxda cabsida ahayd habeenkii waxaa laga maqlaa qayliyo codad dad la qalaayo mararka qaarna waxaa hawada ku soo faafi jiray ur hilib gubanaya oo xawaash kulul lagu daraayo waxaa kaloo la sheegaa in meydad lugahooda inay meeshan soo socdaan intuu sheekadaas waday ayuu moobilkiisu soo dhacay anshuul ayaa taleefanka qabtay wuxuu yidhi haa adeer annaga iyo shifaanii waan gaarnay tuulada guriga ayaanu sii soconnaa maadaama gurigu uu dhowaa labadoodii lug ayay ku tageen daqiiqado yar kadib waxay galeen gurigii canshuul ayaa taleefka isagoo hadlaya ku yidhi adeer gurigu wuu fiican yahay laakiin hal arrin ayaa iga yaabisay guriga hortiisa waxa ku yaal dukaan duug ah dadku waa ay eegaan laakiin cidna uma dhowaato waxay leeyihin waa meel jin degan yahay dhinaca kale adeerkii codkiisa ayaa gariiray wuxuu yidhi magaceeda maad sheegtay ramdayaal breed banandar doqon yahow maa dambe magaceeda ha ku celin qofkii gala weligiis dib uma soo noqon ayuu ku yidhi canshuul ayaa qoslay adeer waxaad isku dayaysaa inaad cabsina geliso wuxuu damiyey taleefankii dabadeed hurdo ayaa qabatay laakiin habeenkii markay saacaddu ahayd 2 habeennimo qolkii waxaa buuxiyey ur wax gubanaya canshuul ayaa hurdadii ka soo booday wuxuu dhahay waa maxay urkan sida burgubtay u uraaya wuxuu daaqada ka eegay bannaanka markaas ayuu arkay wax uu aad uga naxay dukaankii xirnaa gudihiisa waxaa ka soo baxay iftiin huruud ah oo khafiif ah wuxuu yidhi sidee dukaankan xiran iftiin uga soo bixi karaa cabsiya xiise ku jira awgeed albaabka ayuu furay oo bannaanka ayuu soo baxay dabayshii ayaa sii xoogaysatay nalkii dukaanka si cabsi leh ayuu u daarmaayey markuu u dhawaaday daaqadda wuxuu dareemay qof gudaha ka soo fiirinaya wuxuu dhahay kuma ayaa tahay looma jawaabin laakiin gudaha waxaa ka soo yeerayay cod hoose oo cabsi leh rootiga waa diyaar kaalay cun rootigii hilibka dadka laga sameeyey canshuul jirkiisa dhan hal mar ayuu qaboobay daqiiqadaas ceeryaamo bunni ah ayaa albaabka ka soo baxaysay oo dhankiisa u soo dhaqaaqday dhanka kale shifaanii ayaa hurdadii ka kacday markii sariirta agteeda ahayd ay anshuul ka weysay ayay daaqadda ka soo eegtay bannaanka waxay dhahday anshuul war hooy gudaha gelin laakiin anshuul ma uusan dhegaysanin si tartiib ah ayuu albaabka dukaanka u riixay kadibna albaabkii ayaa si tartiib ah albaabkii iskiiska ugu furay gudaha mugdi ayay ahayd meel kasta laakiin miiska dushiisa waxaa saarnaa 3 rooti oo qiiq kulul ka soo baxayay sidii in hadda la sameeyey oo kale cusba ayaana miiska ku daadatay dhinaca kale waxaa yaalay dhiig cusub oo qoyan anshuul ayaa si cabsile u yidhi yaa meesha jooga ma kaftan baa waxaan isla markiiba mid ka mid ah rootiyadii ayaa dhaqaaqay kadibna cod yar ayuu ku hadlay waxaan u muuqdaa mid macaan icun ayuu ku yidhi anshuul cabsi daraaddeed gadaalgadaal ayuu u dhacay rootigii ayaa miiska ka soo siibtay isagoo si tartiib ah u soo rogrogmaayey markaas ayaa digsi weyn si lama filaana u qaraxday boqolaal rooti oo kuleyl ayaa hawada ka soo daatay iyagoo qosol waalan samaynaya hohoho camal waxay bilaabeen inay jirkiisa ku soo dhacaan wuxuu ku qaylinayay ibadbaadiya way i gubaysaa anshuul isagoo qaylinaya ayuu gadaalgadaal u yara socday wuxuu isku dayay inuu albaabka ka baxsado laakiin albaabkii si xoog leh ayuu isku xiray qolkii oo dhan mugdi ayuu noqday kadib dhabarkiisa gadaashiisa waxaa ka soo yeeray cod cabsi leh rootigayga ma cuni doontaa mise adiga rooti noqon doona anshuul si tartiib ah ayuu gadaalgadaal ugu jeestay markaas ayuu arkay nin haaf dhan gubtay oo indho guduudan maqaar gubtay oo qiiq ka soo baxayna leh wuxuu xirnaa dhar cad oo dhiig leh gacantana wuxuu ku watay saxan weyn oo foornada lagu dubo ninkii ayaa qosol argagaxle ku yidhi dukaankayga adigoo gaajo ku hayso ayaad soo gashay hadda dib gaajo ma dareemi doontid sababtoo ah adiga ayaaba rooti noqon doona qiiq madow ayaa dukaanka ka soo baxayay canshuul naftiisa ayuu la baqay wuxuu isku dayey inuu indhaha iyo dhagaha isku qabto laakiin codkii ayaa u sii dhowaanayay codku wuxuu dhahay hadda waa markaagii canshuul isagoo ooynaya ayuu ku yidhi waxaan u imid inaan fiiriyo oo keliya fadlan iddaa bliis waan ku baryaa ninkii gubtay ayaa si waaliha u qoslay qofkii dukaankayga soo gala weligiis gaajo ma dareemi doono sababtoo ah aniga ayaaba kariya qofkaas kadib sheekadaas waxaa la soo xiriirtay sheeko kale oo cabsi ah bal aan isla aragno maanibuur waxay tuulo cidlaa isku bedeshay meel lama degaan ah oo lagu magacaabo maatibuur 4 saaxiib ayaa halkaas ku noolaa iyadoo ay halkaas ka jirtay kuleyl aad u daran maalin ayay go'aansadeen inay meel kale u dalxiis tagaan si ay uga baxaan kuleylkan gubaya waxay fuuleen mootooyinkoodii safar ayayna galeen neyl ayaa yidhi horey miyaad u maqasheen maatibuur aari ayaa madaxa ruuxay maya laakiin meeshan xitaa google map kamaba soo muuqanayso yacni waa meel dhan oo adduunka aan u tirsanayn mid kale ayaa si cabsi u yidhi aariya waxaa tidhi halkan waxaa ku yaallo meelo duug ah iyo ceelal taariikhi ah laakiin tuuladan waxay u eg tahay meel la habaaray qorraxdu waxay ahayd mid dadka gubaysa hawadu xitaa ma aysan soconaynin yacni qofka inuu neefsada ayaa ku adkayd markay tuulada gudaha u galeen waxay arkeen geedo qalalay ceelal madhan iyo guryo burbursan tuuladu waxay ahayd meel cabsi ah oon lagu noolayn iyagoo sii socda ayay maqleen cod duq ah oo ka soo baxaya aqal duug ah oo duqoobay markay u dhowaadeen waxay arkeen hooyo waayeel ah oo sariir duug ah jiifta waxay si adag u weydiisay yaa tihiin
tihiin maxaad halkan u timaadeen siyaa ayaa u jawaabtay dalxiis ayaan u nimid ayay ku tiri laakiin maxaa tuuladan ka dhigay meel cidla ah haweenaydii duqda ahayd indhaheeda ayaa cabsi ka soo muuqatay maatibuur hadda ma aan meel ay dad nool degan yihiin afartii saaxiib waa ay is eegeen dabadeed ayadii ayaa codgariiraya ku tiri sanad kasta marka kuleel daran uu yimaado iyaduna waa ay soo noqotaa neel ayaa si hoose u yidhi markii magaceeda la sheegay dabeyl kulul ayaa si lama filaan u soo dhacday robofati waxay ahayd reer aakhiraad gubatay ka hor dhimashadeeda waxay habaar ku riday tuuladan oo dhan waxay tiri inta dhulkan uu kulul yahay qof walba waan gubi doonaa raagaf isagoo qoslaya ayuu yidhi markaa waxaad leedahay tuuladan waa meel ay jindegan yihiin ayadii ayaa si murugo leh u tiri ayadii ayaa si murugo leh madaxa u ruxday qofkii halkan habeen ku hoyda ama uu dhalaalaa ama dambas ayuu noqdaa cabsi ayay dareemeen laakiin habeen bay ku noqotay mana jirin waxay galan guri weyn oo duug ah oo ku dhow macbad burbursan gudaha waxaa ka jirtay mugdi iyo kuleel nafta gubaysa mid ka mid ah saaxiibadiis ayaa yidhi marwaxaadu way dansan tahay haddana hawadu ma socoto mid kale ayaa isagoo argagaxsan yidhi waxaan dareemayaa qof dhegtayda ku neefsanaya isla markiiba albaabkii weynaa ayaa si xoog leh hal mar layskoogu dhuftay بوم عمل قفل بوبودي نحدين درتد waxaa ku xirmay albaabka iftiinkii tooshka dhexdiisa waxay ku arkayeen hoos mugdi ah tartiib ay gabar soo muuqatay timaheedu ay dab kool ayaan indhaheeduna xasaan dhiig laayay ahaayeen maqaarkeedu wuu gubtay qiiq ayaana ka soo baxayay waxay ku tiri cod aan bini'aadam ahayn kuleylku waa yimid hadda idinku waad guban doontaan afartii saaxiib qaylaha ay la carareen subaxdii dambe waxay dib ugu soo noqdeen gurigii ayayada ayeeyo wax walba aad sheegtay run ayay ahaayeen robofati waan aragnay ayadii ayaa neef dheer soo saartay robofati waxay ahayd gabadha ugu quruxda badan tuuladan qalbigeedu wuxuu ahaa mid wanaagsan waxay sii waday sheekada sanad aad u kulul ka hor arooskeeda biyihii tuulada waa ay qalaleen waxay maalin walba laakiin dadka halkii ay ka caawin lahaayeen waa ay ku qosli jireen siyaa ayaa si murugo leh u tiri kadib maxaa dhacay ayadii indhaheeda ayay isku qabatay maalin qoraxda ay kuleyl ahayd ayay qaylo maqleen dhammaan dadka tuulada waxay arkayeen iyadoo dab isku shidaysa intay gubanaysay ayay ku habaartay tuulada sidii aan kuleylkan ugu dhintay idinkuna kuleylkaas waad ku guban doontaan tan iyo markaas sanad kasta markay dabaysha kulul ay timaado ruuxdeedu waa ay soo noqotaa isla markaas raagaf oo kooxda ka mid ah ayaa la waayay aari ayaa qayliyey raagaf xaggee ayaad aaday wuxuu dhahay hadda ayuu ila joogay dabayl kulul ayaa mar kale soo dhacday kadib codkii robofati ayaa hawada ka soo yeeray waxaan idin idhi kuleylkan waa aniga tuuladayda kuma noolaan kartaan afartii saaxib cabsi ayay la gariireen ayayadii ayaa degdeg u tiri hal waddo oo keliya ayaa jirta ceelkii hore ee la xiray hoostiisa waxaa ku yaala tuulo iyo sanabyo haddii biyo lagu shubo habaarku wuu jabayaa wuuna joogsanayaa waxay u ordeen ceelkii laakiin dabayshii kululeed waxay bilowday inay dharkooda gubto neyl dhulka ayuu ku dhacay isagoo qaylinaya siyaa ayaa gesinimo muujisay degdeg ayay ceelka gudihiisa u gashay waxay aragtay taaladii qadiimiga ahayd iyadoo oynaysa ayay tiri hooyo fadlan tuulada ha gubin mar dambe waxay ku shubtay dhibic biyo ah taaladii isla markiiba hilaac weyn ayaa cirka kala jaray dhulkuna wuu gariiray qaylo dheer oo robofati ah ayaa hawada laga maqlaayay kadibna wax walba waa ay aamuseen hal mar adduunyadii dhan shib ayay dhahday dabayl qabow ayaa markii ugu horreysay tuulada ku soo dhacday maatibuur oo dhan way qabowday muuqaalkeeni halkaas ayuu ku dhammaaday fadlan subscribe saar janaalka naguna soo biir mahadsanid muuqaalo shidan ayaana inii soo wadaa idinka subscribe tala iga adkeeya leegna ii saar saaxiibayaal